xaflad lagu caleema saaray caaqil Cabdiraxmaan caaqil Xujaale ayaa ka dhacday gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel Ubaxle xafladan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jira waxgarad salaadin cuqaal haween iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horeyn waxa halka ka hadlay aadan muuse xandulle oo kamid ah qaban qaabiyaasha xafladda waxaana hadaladiisii kamid ahaa Cabdiraxmaan caaqil Xujaale oo ka soo jeeda beesha Ismaaciil Maxamuud gaar ahaan Axmed Cabdalle inta kadib waxaan runaantii waxa dhameeyay haybe oo iyo ugu daray caaqilka xilka kulay loo igmaday inuu Ilaahay u fududeeyo oo maaragtay ku guuleeyo ayuu ugu ducaynaa insha Allah taala dhamaantiin aad iyo aad baan salaamaya waxa kale halka ka hadlay caaqil Khadar Bacood isagoo kula dardaarmay caaqilka cusub inuu bulshada ugu adeego sinaan iyo cadaalad reerkan maanta caaqilka caleema saaraya cuqaasha maanta inta badan inta la caleema saaro ayuunba faraha laga qaadaya caaqilku ma shaqayn karayo sida caaqil mahad sheegay haddaan garab iyo gaashaan loo noqon oo aan la isgarab taagin ma shaqayn karayo caaqilka waxa loo baahan yahay in baalashii uu ku duuli lahaa la noqdo oo la dhiso oo la taageero oo la isgarab taagayo u baahan yahay ma jirto Soomaalidu waxay tiraahdaa farifool ma dhaqdo sidoo kale waxa halka hadallo kala duwan ka jeediyay caaqilo iyo salaadin kala duwan ayagoo si isku mid ah u soo dhaweey uguna ducay caaqilka cusub inuu Ilaahay hawsha culus ee uu qaaday u fududeeyo waxaana hadaladoodii kamid ahaa Cabdiraxmaan ama Cabdiraxmaan caaqil Cabdiraxmaan caaqil Ducaale caaqil Ibraahim Ducaale waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxa fiican in wax la yar qorto marka hore qoraal la yar sameeyo laakiin ma dhicin nala wada garanayno haddii hadalka ku berbergano hal kala raali ahaado waxaan ka qodol daaranaynaa inuu ducaynaa caaqil Ibraahim Ducaale waynu ducaynaa Cabdiraxmaan Ibraahim Ducaale waayo أبيه وها أسوق نقول إلى بأق لكن العقيبة وعاقلة وآدي عقيبة وقاشر البلوك وضابها اللهم نحرس إلهي الذي هدي أذكر وعن إلهي كعبر ينال حلك إلهي كوفض ذريه خير ونكسم با أذكر رتي وقاش كير نقطة من بانكورنا ياو واتسامك قدام باكوخس بسامك نكادو عاقل يهاي قرب قالنا وحن كان وقاشة أحمد عبد الله أبي أبدي كفلاني لكن حبك هير كي قال لقى مدح ويا سيد عرب هالنمودينا هل جيسو كل رجية تاسا كل دعاءنا دوادو دعاءنا وقاشة ورا دالنا هذا قعنتنا geesta kale waxa halka hadal kooban oo mahadnaqa ka jeedi caaqilka la caleema saaray waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlay doonto Ilaahay la qabto xilkan in deebriskiisa kulliya aan dareemayo waxa weeyaan hadii Ilaahay ilaahdo oo saakayeen de Allah taw inuu wadada wanaagsan inuu maryaaba rajeenaya intan oo isu tigna waa hambalyeynaya waa mahadnaqaya waxa hadalka soo gabagabay Sultan Cabdullaahi Leed oo sheegay inuu si weyn ula shaqeyn doono caaqilka cusub waxaana uu yidhi si waan garanaya adigana maanta waxa lagu dhiibay hawl samafala Ilaahay hawsha samafalka ah qabanaysa Allah ku fududeeyo wixii Ilaahay agtiisa wixii aad dhigataan baa ku yaal war kale ma laha ilaahayna xilka ku fududeeyo Axmed Maxamuud Cumar Axmed Diyax wararka telefishinka caalamiga ee bulsho Hargeysa